Mararka qaar qofku wuu daalan yahay, ma aha jir ahaan, ma aha shaqo badan darteed, laakiin si qoto dheer ayuu u daalan yahay. Waad seexataa, haddana daal baa jira. Waad nasataa, haddana culays baa jira. Haddii aad mar dareentay daal adigoon wax badan qaban, muuqaalkan adiga ayuu gaar kuu yahay. Ku soo dhawow Mirath Podcast, dhaxalka aan reebayn. Daalka ugu khatarsan ma aha kan muruqyada, waa kan maskaxda. Maskaxdaadu ma nasato xitaa marka jirku nasanayo. Fikir badan, maxaa noqon lahaa? Maxaan ka gaabiyey? Maxaa iga hor istaagsan? Go'aamo badan oo aan dhammaanayn. Isbarbardhig joogto ah nolosha dadka kale. Maskax shaqaynaysa 24 saac. Waa jir daalan xitaa haddaanu wax qaban. Qof aan ogeyn sababta uu wax u qabanayo. Si fudud ayuu u daalaa. Meeshaas aad u fiirso. Sababta haddaadan garanaynin aad baad u daalaysaa. Waa inay ku degan tahay, wax walba ay ku qorshaysan yihiin. Waxaad qabataa waxyaalo badan, laakiin maxay ku yihiin? Nolol ku socoto react halkii ay ka ahaan lahayd direction. Shaqo, waxbarasho, dadaal, laakiin halkay ku geynayaan? Su'aal qoto dheer isweydii. Haddii aad sii wadato waxa aad hadda samaynayso, xagee ayaad ku dambayn doontaa? Daalka ugu culayska qarsan. Waxyaabaha aanan ka hadlayn ayaana daalinaya. Walbahaar aan magac loo helin. Cabsi aan la qiran. Qofku wuu socon karaa isagoo qalbi culus leh, laakiin culayskaasi ma sii daayo ilaa la aqoonsado. Casharka aan halkan ka baranayno ayaa wuxuu yahay qarashada dhibka waa tallaabada koowaad ee nasashada. Daalka ugu badan waxaa noo sababa marka aynu Ilaahay xarigiisa xoogaa dabacyar oo noogu jiro. Taas ayaana keensata in qofku daal badan dareemo. Ducadeena oo yaraata. Xiriirka ruuxiga oo daciifa. Qalbiga oo raadinaya wax buuxiya balse aan helin. Iimaanku marka uu daciifo, walbahaar baa bata. Cabsidu way korodhaa. Qalbigu ma helo meel uu ku nasto. Xaqiiqo waxaa ah qalbiga bini'aadamka waxaa dejin kara kaliya xiriirka Allah subxaanahu wa ta'ala. Sidee looga baxaa daalka? Magac u yeel daalkaaga. Maskaxda, qalbiga, ujeedo la'aan. Yaree isbarbardhiga. Noloshaada waa jid kuu gaar ah. Hal hadaf cad samee, xitaa mid yar, laakiin macno leh. U laabo Allah subxaanahu wa ta'ala. Ducada badi. Aamusnaanta ku dadaal. Alla tawakkulka ku dadaal. Mararka qaar nasashadu ma aha inaad seexato, waa inaad fahanto waxa kugu daalinaya. Haddii episode-kan wax ka taabtay, ogow inaadan kaligaa ahayn. Mirath, dhaxalka aan reebay. Ilaahay qalbiyadeena ha dejiyo.